marka koowaad waxaan mahad celinayaa tiimkii guddigii saaxiibada ahaa sida maaragtay odaytinimada leh oo ay hawshan noogu igmadeen nooguna aamineen isla markaasna ay noogu garteen inaan hawshan meesha aan joogno ka sii wadno annagoo tiim wada ah marka labaad waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxdeeda kala gedisan waxaa noo yaalo hawl culus dhammaanteen tiim ahaan iyo shakhsi iyo qof ahaanba hawshaas culusna waxay tahay waa hawl aan hal qof qaban karin laba qofna qaban karin saddex qofna aysan qaban karin bulshada reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed waxay naga sugayaan inaan hawshaas noloo igmada ka soo dhalaalno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ceebteena ku asturo inaan ummaddaas wixii nagula dhiibay aan sidii ay ahayd uga soo dhalaalno inaan u cadaalad sameeyno inaan u soo saarno ugana shaqeyno wax dhammaantood ay dhihi karaan way nimatalaan way noo qalmaan waan ugu habboon yihiin intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan u sheegaynaa ummadda reer Galmudug iyo shacabka Soomaaliyeed labadaba in maanta wixii ka dambeeya hawshii naloo idmaday ee ahayd farsamada maamul sameynta Galmudug aan halkaas ka sii wadi doono lana wadaagi doono xilliyada ku soo dhow ee ku habboon qorshe hawleedkeena aan dabacsanahay inaan sameeyno waa mahadsantiin